السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدرر سوماليان iyo ummadda islaamka waa idin salaamay meel kastoo aad joogtaanba dagaalkii ka socday maxaan ku idhahday meesha la yidhaahdo dacawaley weli waa socdaa saaka waxaa la sheegay haddana in dub u bilaabmay weliba midkii ka culusi uu bilaabmay qayladu waa isqabsatay oo ummaddii odhan jirtay maxaan ku idhahday laascaanood reerka yagaa leh ayaan loo dowladayn maanta waxay marayaan dacawale waxa weeye ismaamulka soomaalida deegaanka soomaalida weeye oo ogaadeen inay ka tirsan tahay ayaan lagu dagaalamin oo loo soo gurmanin beesha arab waxaan dhagaysanayay wareeyaashoodii oo ninka jaamac gallad la yidhaahdaa uu ka midka yahay waa ninkii dagaalkii laascaanood markuu socday ololaha ugu weyn ku jiray ee lahaa reer uma dowladayn karo maanta wuxuu leeyahay laysu dowladeeyo oo soomaali baa la wada yahay oo maxaan ku dhahay halkaana maamul baa ka jiro iyo dowlad baa ka jirta yaan la taataabanin asaga ma aha ee dhammaantood reerkii ogaadeen kii joogay soomaaliya kii Kenya joogay iyo kii maxaan ku dhaday joogay kilinka shanaadba waa wada qaylinayeen waxay leeyihiin waxa lagu soo duulay maxaan ku dhahday maamul goboleedkii Soomaalida ama dowlad deegaankii Soomaalida shalay markuu dagaalku laascaanood ka socday waa dadkii lahaa reer uma dowladayn karo siday suurtagalku ugu tahay maanta inaad tiraahdo reer ha u dowladeeyo inkastoo marka runta laga hadlo annagu aanu aaminsanay oo ixtiraamsanay in ummadda reer Somaliland mid waliba ummadda Soomaaliyeed ee shanta Soomaaliyeed ku kala jirta mid waliba xuduudeeda iyo dalkeeda ay maxaan ku idhaahdaa ay deganaato ku kalsoonaato laakiin adigu maad aaminsanayn taa ee waxaad aaminsanayd shalay xuduud qabiil waxaa la reerka maxaan ku idhahdaa la yidhaahdo dhulbahante Somaliland kama si mid ahaan kara sababtu tahay waa daarood oo isaaq maaha waxaad u arkaysay dowladda Somaliland waxaad u taqaanaa isaaq anna waxaad doonaysaa inaad iga dhaadhiciso maxaan ku idhahday nimanka dowlad deegaanku waxa weeyaan waa ummadda Soomaaliyeed halka degan oo dhan bay nimanka ogaadeen maamulaan oo waxaad rabtaa in xukunkooda lagu qaraxsanaado khaldan marka qofka waxa weey marka hore aad hadlaysay xaaladi taagan tahay waa inaanad maxaan ku idhahay dabaalan sida shalay u hadlaysay maantana u hadal laba reer baa halka isku dilay reer dowlad maamulka la yiraahdo wuxuu haystaa maamulka la yiraahdo kilinka maxaa la yiraahdaa deegaan dowladeedka Soomaalida waa reer ogaadeena oo maalinta isku dhacaan ciidankoodaas ay soo kaxaystaan dadka laakiin maanta aad leedahay Somaliland baa nagu soo duushay Somaliland ma aha waa shacab isaaq la yiraahdo dowlad Somaliland kuguma soo duulin shacabkii isaaq ayaa iskarab taagaya shacabka isaaq ee aad maxaan ku idhahdaa ciidanka u soo kaxaysatay u dowladaynayso haddaad dowladnimo iyo wanaag ummadda ku wada dhiqilayd hadal ma taagnaadeen laakiin taasi ma jirto imikana halka ay taagan tahay in laga noqdo ma aha waxa weeyaan dadkaas waa inay dadka ay ka hoos baxaan oo laba gobol bay degan yihiin dalkoodii inta tuulayo laga dhigay ayaa gobollo kale la hoos geeyay waa in laga saaro weeye waana in la iska kiin celiyaa haddaad ogaadeenimo ciidamo dowladeed ku soo kaxaysanayso iyo haddii kaleba isaaqna waa midoobaya sida daarooda u midowdeen ayuu isaaqna u midoobayaa sida daaroodka Kenya jooga daaroodka maxaan ku idhahdaa Soomaaliya jooga iyo daaroodka kilinka shanaad jooga aad ugu midaysantiin cadaawadda isaaqna waa inay idin midoobaan oo difaacooda u midoobaan Somaliland ba colaad ka wadaan oo xuduudaha yagii ku soo duusheen in shacabkii halka deganaaba idinka oo ciidan dowladeed u isticmaalaya weerar ku tihiin oo isaaqnimo u leynaysaan
dadka kale markaa ma waxaad u malaysaa inay dadka aad ka caqli badan tihiin beesha isaaq waxaa laga rabaa meel kasta oo ay joogaanba in ay dhiigga iyo naftaba huraan dhaqaalaha huraan inay dadkaasi inta ay helayaan maamul goboleed ay leeyihiin waa in ay helaan ciidan difaaci kara waa in loo sameeyo la siiyo hub ay isku difaaci karaan waa in loo sameeyo meel ay ciidan ay leeyihiin uu deganaan karo oo maalinta ay far lagu soo fiiqo degdeg u geli kara waa inaa cadowgiina isaaqow idinku ah isu soo noqotaane waa inaa cadowgiina u midowdaan deegaankaasina waa deegaan dee 2 gobol ama ka badan ah oo beesha isaaq reer kastoy tahay degan yahay reer la macnihii dee gaar uga badbaadayo colaada iyo mid ka badbaadayna ma jiro waa inaa u midowdaan cadowgayna inaa u midowdaan weeye Somaliland itiraafkeeda iyo dowladnimadeeda waa inaa u midowdaan oo siyaasadaha maanta socda ee itiraafkeena la isleeyahay ku hor joogsada ayna u midowdaan oo ismuujisaan oo meel kastood caalamka iska muujin kartaan baad isaga muujisaan in xuduudihiinana aad difaacataan dadka maanta dagaalku ku socda isaaqnimo iyo reer isaaqnimo loo laynayana waa inay isgarab taagtaan waxaasoo dhammi waxay ka socdaan waxa weeye runta marka laga hadlo waa colaada Somaliland lagala soo horjeeday itiraafkeeda dagaalada maanta lagu jiro ee dhan kasta la isleeyahay ka bilaaba ama laga bilaabayba waa la dagaalan Somaliland iyo beesha isaaq itiraafka Somaliland ee maanta miiska saaran sidii lagu burin lahaa baa la isku dayayaa oo bariga Somaliland dagaalku uga socdaa laakiin taasi waxay kordhinaysaa male waa la og yahay halka ay Somaliland ku taalo inay dal yar oo nabdoon oo 4 koono hareeraheeda dad dab ka baxayo inuu duulduulkiisu soo gaarayo caalamku waa og yahay taasaanay tahay in loo cadeeyo caalamka oo loo sheego dhibaatada ay ku wadaan dadkaasi ujeedada ka dambaysa waxay tahay iyada inay meel gubanaysa aanu ku naalo oo duulduulka dabkaasina soo gaarayo labada macnihii Somaliland runta marka laga hadlo siyaasadna way ku guuleysatay oo aqoonsigii bay qarka ula saaran tahay difaacna way ku guuleysatay laakiin waxa la doonayaa in awood kasta oo la isticmaali karo lagu isticmaalo dagaalka laga wado maxaan ku yiraahdaa kilinka shanaad ee beesha isaaq lagu wadaa waa mid ujeedooyin fara badan ka dambeeyaan marka waxa way ujeedooyinkaasina meesha ka bixi maayaan ilaa iyo ay dadka halka degan helaan maamulkooda gaarka ah oo toos u hoos taga anagu xuduudaha Afrika burin mayno kuma socono xuduudda Ethiopia burin mayna xuduudaha taayada buraysa haddii aan xuduudaha Afrika burino annaga taayada buraysa hadda waxaan maqlaa inta badan waxaad maqashaan dad leh xuduudda Soomaaliya ayaa la ixtiraamay Ethiopia xuduudda Soomaaliya waxay jawaan ixtiraamay yaa ku haysta xuduudda Soomaaliya 60kii la jeexay yaa ku haysta laakiin xuduudda Somaliland xuduudda kuma jirto ma fahmaysaa waxyaabaha macnaha daran ee la idinku sheekaynayo in xuduud wala Ethiopia ixtiraamday Ethiopia waligeed waa ku ixtiraamaysa dad ba fadhaq lahaa sida awadeed anagu xuduudda Ethiopia duulimaad kuma nihin laakiin waxaad ogaataa dadka maanta ka dagaalamaya iyo reeraha isaaq ee maanta ka dagaalamaya Ethiopia ama xuduudda Ethiopia ka talaa waa shacabkii u dhashay halkaas shacab baa ka dagaalamaya shacabkaasina waa shacabka halka degan la dhashay qasab iyo waajib iyo xaq baanay ku tahay inay difaacaan dadkooda laakiin dawlad Somaliland oo ku timi ma jirto dawlad Somaliland oo ku soo socotaara ma jirto
laakiin shacabka yaga ayaa kuu soo socda, shacabka yaga ayaa difaacaya qarannimada sharafta ummadda halkaa degan iyo qarannimada Somalilandba. marka waxaan leeyahay ummadda isaaq la yidhaahdo meel kastoo aad joogtaanba waa inaa ka gurmataan, qurbaha waa inaa ka gurmataan oo dhaqaalaha bixisaan oo hubka iibisaan, waddankiina waa inaa ka gurmataan. innagoo shacab ah waa inaynu gurmano, innagoo oo shacaba waa inaynu gawaadhideena maxaan ku dhahdaay hubka saarno, waa inaynu hubkay ku dagaalamayaan iyo qorigay ku dagaalamayaan iyo gaadhigay ku dagaalamayaanba shacabka reer Somaliland ay bixiyaan. dagaalkan ka hadlaya maaha mid ummad lagu duulayo, ma aha mid aan leeyahay reeraha iyagoo ku duula reeraha kale, laakiin waa isdifaaca. allah kuu ogol inaad isdifaacdo, isdifaaca. dagaalka maanta socda ina cagjar baa ogolaaday, taliyaha ciidanka booliskooda ogolaaday, ayagoo oo dhan baa ka dambeeya. sidii laysaga difaaci lahaa waa in lagu talagalo, waxaana layskaga difaaci karaa oo keliya waa midnimo isa. bariga ha ka socdo dagaalku, halkaana ha ka bilaabeen dagaalka, waa u qaybsanaa, waana iska difaacaynaa. laakiin waa markay inagu midnimadeena aynu muujino weeye. waxa ina dhex yaalla waa inaynu ka tallaabsano oon maanta waxaa la soo hadal qaadin weeye. waa inaad difaacdaa isaaqnimada, aday dantaada tahay, anay dantaayida tahay, ka kalay dantiisa tahay. jiritaankeenna ayaa ku xidhan difaaceenna iyo midowgeenna. marnaba ma noqonayno kuwa ayagu ummad ku duula ee ummad doonta ee ummad raadsada, laakiin wixii ina soo doontaa waa inay jabaan weeye, weligood baanay jabaye. cadowgeenna midnimadeenaynu kaga adagnay, kagama adkin tafraaruqa kagama adkin. markaa maanta waxaan arkayaa qoladii oo de afarta koore ka qaylinaysa, kuwii shalayta lahaa reeraha dega maxaan ku dhahay xuduud qabiilka raadinayay, halka xuduudaha qabiilka iyagaa yaqaana halka la marinayo. annagu xuduud qabiil daydaymayno, ma daydayna xuduud maxaan ku dhahay reeruhu isku dilaan, laakiin waxaan daydaynaa in sharaf iyo karaamo lagu wada noolaado. laakiin haddii la diiday waa in la kala gurtaa. lascaanood waan kaaga tegaye qaado, laakiin ana dhul aan leeyay iyo dhul isaaq leeyay kama talin karti. taakana lugtana inay soo dhigaan maaha, waa inay wada eryaan, waa inaan siyaasigoodu u iman, waa inaan askarigoodu u iman, waa inay sutida u qabtaan. dowladda dhexe waa ee Ethiopia waa inay soo dhex gasho, lagu qasbo inay soo dhex gasho. waxaanay ku qasbanaanaysaa marka hubka maanta la isu qaatay ilaa iyo ay dowladda dhexe go-aan ka gaadho uu socdo. hadduu soconayana beesha isaaq ayaa qurba joogteeda iyo qulqul joogteedaba laga rabaa inay shacabka iskarab taagaan. haddii la iskarab taagi waayo jiri mayno inaguna. Somaliland baan jiray, cid kalaan jiray. markaa jiritaanka isaaq wuxuu ku xidhan yahay midnimada isaaq iyo difaaca isaaq. xuduuddeenna taa ka dhaafi mayno, soomaaliyana u dhaafi mayno, etoobiyana u dhaafi mayno, laakiin halka aynu degano waa inaan ku nabad helnaa. etoobiya inta ay ka degayin inteedan ka deganay. haddii ay walaalnimadii diideen, oy wada noolaashiyii diideen, oo in la wada dowlad la wada lahaada diideen, oo in ciidanka la wada lahaada diideen, oy samaysteen inay ciidan ayagu markay doonaan ku dagaal galaan, oy reeraha kale madaxa kaga garaacaan samaysteen, waa in laga baal samaystaa. guul iyo gabonimo ayaan idiin rajaynayaa. inta meelaha hadalka xun beesha isaaq ku kala furfuraysa waxaan ku leeyahay walaal, isaaqnimada jiritaankaygaa ku xidhan, jiritaankaagaa ku xidhan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.